مدنو من كدغداي دار من مدغولو مشعرداي ناس مدنو من كدغداي دار من مدغولو مشعرداي دمن مغاليو مونا بيلاني بيرتا قرال ما حدا هود قالكا يا مدن ما قمودوي دمن مغاليو مونا بيلاني بيرتا قرال ما حدا هود قالكا يا مدن ما قمودوي aros madal sare lo madahiray meeqam iyo guur maantahanate door matahana ula kugu soo aros madal sare lo madahiray meeqam iyo guur maantahanate door matahana ula kugu soo يا مدن ما قمودوي دمن مغاليو مونا بيلاني ميرتا قرال ما حدا هود قالكا يا مدن ما قمودوي aros madal sare lo madahiray meeqam iyo guur maantahanate door matahana ula kugu soo aros madal sare lo madahiray meeqam iyo guur maantahanate door matahana ula kugu soo aros madal sare lo madahiray meeqam iyo guur maantahanate door matahana ula kugu soo الله سيئ هوش سوف ذي حنقول ذكري دونا مهركا هذا الكلام تدمرنا ونكون حجسان دونا حنو يرينا الشيخ هذا ولي عبد الحسين شيخ هذا حقا كاري iyo waxaan filayaa caaqil Cabdirasaaq waa hawsha dhameystiri doona mise abshir dadka lagu baaqay oo xagga diinta ku saabsan in dadka la isu guuriyo dhalinyarada insha Allah waxaynu ku soo dhaweyn doonaa Sheekh Aadan Cali Nuur oo kelmadda iftitaaxa waa sidaas nolosha bini aadamku oo dhan waxa la rabaa in lagu sameeyo cabsida Ilaahay qofka xayaatada uu nool yahay cuntada uu cunayo xaajaadka uu sameeyo wixii soo dhan cibaado noqdaan haddaan Ilaahay ka baqno waxa hagaagaya dhammaan duruufaha aynu insha Allah taala
nolosha qofku uu la kulmayo ilaahay baa hagaajinaya nolosha adigu ma hagaajin kartid adoo ma salixi kartid adoo ma wanaajin kartid laakiin qofka waxa hagaajinaya waa ilaahay marka qofka iyo ilaahay xiriir wanaagsan inuu ka dhaxeeyo baa loo baahan yahay xiriirka ilaahay ka dhaxeeya hadduu xumaado adiga ilaahay waxa weeye xaaladaadu khatar bay noqonaysaa marka qof kastoo islaama waxa laga rabaa inuu isaga iyo xiriirka ilaahay ka dhaxeeyo hagaajiyo sirran oo calaaniya si hoose iyo si saraba qofku inuu hagaagsan yahay baa laga rabaa xafladan la isugu yimi ee dhaqanka ah oo soo jireenka ah iyadana insha Allah taala khayr iyo barakaan ugu ducaynana reerka cusub ee la dhisi doono wali laguma dhawaaqin laakiin ducadana way isaga sii qadimanaa ilaahay ha barakeeyo maxamuud cali cilmi iyo gabadha uu guursan doono ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inay ku noolaadaan cabsida ilaahay kuna dhintaan cabsida ilaahay laguna soo saaro adduunkana wax wanaagsan la kulmaan aakhirana wax wanaagsan la kulmaan innagana waxaan ilaahay ka baryanaa inuu khayrina waafajiyo guurkuna wuxuu ku fiican yahay inuu fudud yahay inuu sahlan yahay inuu waxa weeye aan la cuslayn ragga gabdhaha leh guurka ha fududeeyeen ragga guursanayaana guurka ha fududeeyeen haddii guurku fududaado ummaddu waa barkoobaysaa wanaaggaa badanaya macsidaa yaraanaysa haddii guurku adkaado oo guurka la qaaliyeeyo oo dadku guursan kari waayaanna xumaanta iyo macsida dadkeeda badanaysa waxaa laga yaabaa ninbaa maalmood wuxuu yidhi Hargeysa waxaa laga yaabaa haddaad gabadh guursatidna inay 10 kun kugu tagto haddaad xumaanta doontidna inay kugu tagto $10 ama $15 inay kugu tagto marka dadka muslimiintaana ilaahay wuxuu jideeyay inay guursadaan guurkana la fududeeyo ilaahay baa guurka wuxuu ka dhigay wax wanaagsan oo waxa weeye macaan oo sakiina iyo xasiloon ku jirto huwa alladhi khalaqa lakum min anfusikum azwajan lataskunu ilayha waja'ala baynakum mawaddatan wa rahma ilaahay waa kaydin abuuray wehel naftiina idinka abuuray ina ku xasishaan dhexdiinana dhigay mawaddo iyo rahma mawaddada iyo rahmadana guurka uma laga helaa ninka aan guursan ha guursado oo ragga meesha fadhiya waxa laga yaabaa rag badan oo guur sugaye ha guursadeen ninka labali xabadii ha labeeyo ka labali ha sadeexeeyo ka saddexlin ha afareeyo wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salaamu yahay haday tahay uqaal haday tahay wax garab haday tahay ganacsato salaan kadib ilaah baa mahad leh ilaah baa isu keenay waa golo dhaqan arin qurux badan oo khayr qabtay isugu nimid ilaah baa isu keenay ilaahaygaas mahad mar labaad iyo mar saddexaadba ilaahaygaas mahad inta kadib waxaan halka isugu nimid waa ardaadhig hawlaha la isugu imaan jiray xaaladooda waa arrimaha ugu quruxda badan maanta ilaah baa iska leh halkan waxaanu dooraynaa gabadha la yiraahdo anoo Fardows Cabdi Maxamed waxaan u doonayaa ninka la yiraahdo Maxamuud Cali Cilmi Warsame khiyaarta sharafta leh arintaas aanu soconay gabadhaas aanu fadhiyana la siiyo assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عاقل مهسند وحاينو gudbana qoyska gabadha inkastoo garaadku dadka ka dhaxeeyo waxaan ku soo dhaweyn doonaa Cabdullaahi Garaad Saleebaan garaad ku soo dhaw عاقل عبد الرزاق فلالوق بالله dhammaan waayeelka iyo waxgaradka halkan isugu yimay waa idin salaamanaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب إله ما هذا له لما أنت هذا لك بعدي ويديسي شرفت لها أو هالكن نلقو ويديستي فردوس عبدي علمي
iyadoo loo doonayo maxamuud cali cilmi waa siinay gabadha sidii qur iyo qabiilba nalooga weydiistay baanu u bixinay aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan ku soo dhaweyn doonaa oday maxamuud axmed yaasiin oo kelmadda inta hadhay ku dari doona ku soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم marka ugu horeysa ilaahay baynu mahadinaynaa Allah halkan isugu keenay inagoo nabad qabna hawl dhaqan oo sharaf ah oo reer dhismaya ah oo maamuus qoys ah ilaahay halkan isugu keenay baynu mahadinaynaa waxaanu leenahay alxamdulillaah xamdan kasiiran dayiban mubaarakan fiih mahad ilaahay kadib waxaan u malaynayaa hawshan mahadnaqun baa ka dhiman iyo in yaroo annaga noo daba taalo xaajada ka harsan hawsha mahadnaqa tolka dhammaantii waa u mahad celinaynaa sida sharafta leh milgada leh gobannimada leh ehelnimada leh oo aanu uga doonnay gabadha Farduus ayna u bixiyeen oo quriya qabiilaba noo siiyeen aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa dhammaan ehelka kale ee meesha jooga ka soo qayb galay xafladda iyagana sidaas si leeg baan ugu mahad celinaynaa imaatinka iyo waqtiga iyo ka soo qayb galka iyo ka marxaati noqoshada reerka cusub intaba waa uga mahad celinaynaa tolka kale inta markaan ka soo gudbo waxay la tahay xaajadii waa dhamaatay gabadhi waa la bixiyay laakiin waxa uu ka dhiman waa la garanayaa waa in naloo meheriyo oo naloo dhammaystiro oo ay hawshu sidaa noogu dhammaataan dee unbaa ka dhiman insha allahu tacaala intaana tolkaan ka sugaynaa waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فردوس عبد ميرها اساس وياه محمود واقسي فردوس عبد ميرها هي ما شاء الله محمود فردوس عبد ميرها waa lagu siiyay meherkeedu waa bashay sida caaqilku ku siiyay gabadha ma aqbash insha Allah waa ku nikaaxsan tahay meherkaana waad ku aqbashay 10 ka halaad بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير ادعي إن شاء الله وذا دعي إن شاء الله إلهي سكين بركيه الله ريركي خير كواغل قلاء أو خير كسو كردية أو نولش هذا خير كله ما يستإلهي كرديو إلهي سبحانه وتعالى وحنيدين كبرينا إلهي صلى الله عليه وسلم عنو ملاينا يا قلوه وقلو دقان وقبل ليسكو ويديستي waxa ku filayd marka inta dhaqanka inoo hadashaba iskaga filayde hadii la soo kiciyay waa uun iska hal magac dhaabay ama kacday ama kurkursatay dhinacan kaga biirana waaba garan la ahado ma magaca macallimiintan ku hadla oo macallinkii weynaa ee Cabdi Mire oo gabadhiisi meesha lagu bixinayo ma bahada wiilkan ku hadlaayo jaamacadda Nugaal iyo ardaydii ka soo baxday ah gabadha lafteedu waa dhiganaysa ma dhinaca beelahan ku hadlaa waxaan u maleynayaa wax dhaxun baan iskaga hadlaya oo intaba insha Allah dan wax marka waxa ila tahay waa goob khayr weeye oo goobaha loogu jecel yahay ama ugu khayrka badan oo goobaha reer lagu dhisayo reer islaama oo la rabo in uu waxa weeye wax badan ku soo kordhiyo bulshada baynu halkan ku dhisnay waxaan u dardaarmaynaa wiilka kulli mas'uuliyad gaar ah fuushay mas'uuliyadda gaarka ah inuu ilaaliyo insha Allah aroos aad khayr u qaba waayo dhulbahanta oo dhan baa ku dhan qabiil waa ka gooni ishaan marinayay reerku waa ku dheeyay ilaahay waxaan ka baqay kabrayna in khaatimadaas oo ilaahay inuu ku soo celiyo oo inuu midnimadeena dib ugu soo noqono oo inuu gurufta yar hoose iska dayno
iminkana dunidu waa adagtaan oo aakhirkii baa lagu jira waa aakhir zaman nin walaba naftaada arooskana waxaanu ilaahay uga baryaynaa sidaa uu iskugu keenay reerka inuu isaguna noqdo reer loo dhan yahay oo ka mid ah beesha waan ahayn jees iyo jees midna ahayn asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan filayaa arrintaa oday axmed xasan ka hadlay waxa weeyaan maxamuudow dhulbahanto dhan baa la xidhiidhayo dadka meeshaa fadhiya maanta waa sodog iyo seedi iyo inaabti iyo awow iyo hawshaa wixii ka soo noqda waa intaasaa kaala xisaabtamaysa iminkana waxaa ku soo dhoweyn doonaa cabdisalaan cabdil bismillaahi raxmaani raxiim bismillaahi raxmaani raxiim xafladan quruxda badan ay isugu yimaadeen uqaasha culimada dhallinyarada macallimiinta nooc kastoo ayuu yihiin baa waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib meeshan waa xaflad meher xafladda meherkuna waxa weeye nuxurkeedu in dadkana la isiisiiyo la isugu duceeyo meherka si fiican buu noogu dhacay alxamdulilaah inagu waynu u ducaynaynaa inuu ilaahay barakeeyo inaku maalin kalmada odhanayaado oo dhallinyadu gabdhahaas si weynna way u doonaan kulli hadhowla qaar baa yar fududaadoo fura meel weyn baa lagugu siiyey aad u dadaal taasi waa intaa ilaahay reerka ha barakeeyo ilaahay ha barakeeyo ilaahay reer khayr qaba ha ka dhigo ilaahay awlaad ha kala siiyo ilaahay reer ballaaran ha ka dhigo wixii bukaallaha caafiyo oo kullay odayaasha la magacaabayaa ka mid yihiin dhammaantood ilaahay caafimaad baynu uga baryaynaa xanuuna kan laga hadlayo adduunka jahwareeraya ilaahay ha inaga hayo ilaahay ha inaga hayo ilaahay isaga qaadir dhinac ha inaga mariyo dembigeenna iyo kii waalidkeenna iyo kii muslimiinta allaha dhaaf ilaahay bale dhammaantii ha inaga xijaabo ilaahu khayr dhammaantiisaanu kaa barin ilaahu raxmad baanu kaa barin ilaahu nabadgelyaanu kaa barin ilaahu wixii mushkilada naga dulqaad allahumma salli calaa maxamed faatix bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdulilah garaadka inoogu xidhan tahay dee shirku waa halkaas inoogu xidhan yahay ilaahay khayr ha inooga dhigo roob khayr qabana allah hayna siiyo